qofkii nabi maxamed caaya oo muslima waa gaal hadduu toobad keeno ilaahay toobada waa ka aqbalaya laakiin waa la dilaya. Salaamu alaykum markaan daawanaysiin wanaag qoyska ala ugu barteen barnaamijka arrimaha bulshada. waa markii labaad aan ku gada jirno sanadkan ee dhacayso in suubanaheena sallallahu alayhi wasallam la caayo misal aflagaadeeyo ninka aflagaadeynaya ma ahan jeenees mise mid cadaan ah balse waa Soomaali ku dhashtay diinta Islaamka. waxaa haween hore live ku kala jiray wiil loo yaqaano Burhaan Dhako iyo saaxiibkiisa oo ay taqaaniin oo loo yaqaano Cilmiyare ayaa waxay ku kala jireen live TikTok ah ayagoo live-ka ku caweysanaya geemka ayagoo wada dheelaya ayaa waxaa wiilka lagu magacaabo Burhaan Dhako wuxuu aflagaado u geysay xabiibkeena rasuulka sallallahu alayhi wasallam asaga oo sheegay waxyaabo afkeena soo qaban karin. maanta ayay ahayd markii Burhaan Dhako soo duubay muuqaal yar oo soo dhigay barkiisa TikTok asagoo ku sheegayo in uu raali geliyay xabiibkeena balse raaligelintaas maxay diinta ka qabtaa uu sheegay khalad waay. waxaan rabaa inaan dul istaago qadiyada ku saabsan nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo meel kaga dhicis oo soo noqnoqotay oo ay noqotay qadiyad ay iyadana dadka ku kiciyaan mar walbana soo laabata. qadiyada iyada waxaan doonayaa inaan si gaaban uga dhaado horeyna muxaadaro dheer baan uga galay oo aan doonayaa cidii doonaysa tafaasiisheeda inay hesho cilmiga ah inay u laabato. waxaan si caawa ka dhahayaa kow horta waa la isku waafaqsan yahay qur'aan iyo sunno iyo ijmaaca ummaddu waxa weeye nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi bi abi huwa wa ummi cidii caida ama aflagaadaysa ama meel kaga dhacday inuu kaafir billaahi yahay dilkiisuna banaa yahay bal inuu waajib yahay. xataa culimada in badan waxay qabaan cid cafin karta inaysan jirin. xuduudda kale xataa toobad bay ku dhacdaa bayda laakiin ayadu inaysan xataa toobad ku dhicin bay culimo badan rumaysay. mas'aladaasi waa mas'alo musallam ah. ruux muslim oo ilaahay rumaysan inuu nabi maxamed u gafaayay wax sahlan ma dhanka kala daawada nala daawo raaligelintu soo bixiyay Burhaan Dhako oo nabiga u gafay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله وبالله وتالله إله ساس يسري عن بان كدارت إلهي أبو رتبان كدارت والله وبالله وتالله هبين كان نبي عاي والله إنا الميل المري يميلان شوقين دل يرى وقلت كد عيبان هاي الشيطان بقى قرحيي إن ما هذا الرجال حالك يقول عادي ما هين إلهي كبقى كل يوم تكتوك صورك سوا بالشبعان إلهي برطه بذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله يقرأ الله وحبيبك إلهي يقرأ الله وحبيبك إلهي يقرأ الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي كبقى وبالشبعان إلهي كبقى والله وبالله وتالله إلهي كان داونيسين wanaag qoyska ala u barteen barnaamijka arrimaha bulshada fadlan daano subscribe leh maalintana ku wanaagto.